بسم الله الرحمن الرحيم كوبية تومانكا بيشا جانوري سنة كاللبكون لباتنية اللح أو كوبهاغن لبية لباتنكا بيشا رجب سنة كون أفر بقول أفرتنية تضبا تاريخ ذي هجرية كسو دوادا مركله هي برامجكي حلشة وراركا قضبدا آن إذن كوغوهينانا وحا كمدا ومامولكا ترام oo ka arisanaya weerar duqimo ballaaran ah oo lagu qaado Iiraan xilli ay isa soo tarayso hanjabaadda ka imaanaysa madaxweynaha Mareykanka Israa'iil oo xalay ay ka dhacday arrin argagax ku abuurtay kumanyaal kun oo qof kuwaasi oo aan hurdaladin haddaba maxay tahay arrintani warbixin yaab leh ayaan idinkaga haynaa oo warbaahinta Israa'iil ay hadal hayso meydka sarkaal Israa'iiliya oo ka tirsan ciidamada oo la helay Pakistan oo in ka badan 1 bilyan oo dollar hub ay ku jiraan diyaaradaha dagaalka ka iibinaysa Suudaan arrintan oo dhinac u ridi doonta dagaalka ka socda dalkaasi Suudaan bannaanbaxyo waaweyn ayaa xalay ruuxay Israa'iil gaar ahaan magaalada Tel Aviv iyadoo la dalbanayo in la rido xukuumadda Netanyahu dhammaan wararkan iyo weliba warar kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordhay intayna hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka xulashada wararka aadna ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka saaka waxaynu ku bilaabaynaa bannaanbaxyada ka socda waddankaasi Iiraan 2 toddobaad ayay bannaanbaxyadu galeen waxaana soo baxaya warar kala duwan oo amurahani la xiriira mas'uuliyiinta Iiraan ayaa xalay shaaciyay in ay xireen 10 qof oo ay ku tilmaameen hogaamiyaasha mudaharaadayaasha rabshadaha wata kadib 15 maalmood oo dibadbaxyo ballaaran ah dalka ay ruuxeen kuwaasi oo ka dhashay diidmada xaaladaha nololeed ee sii xumaanaya wakaaladda wararka tasniim ee Iiraan laga leeyahay ayaa ka soo xigatay ila amni oo sheegaya in la xiray 200 oo hogaamiyaasha bannaanbaxyada rabshadaha wata kuwaasi oo laga helay hub iyo walxaha qarxa isla wakaaladda ayaa sheegtay in 100 mudaharaadayaal hubaysana lagu xiray magaalada Bahristan oo ku dhow caasimadda Teheraan mas'uul ka tirsan garsoorka Iiraan ayaa ka shanqariyay in 6 ka mid ah ciidamada ammaanka iyo booliiska lagu dilay rabshadaha ka dhacay gobolka Varis ee koonfurta dalka halka 120 kale ay ku dhaawacmeen wuxuu intaasi ku daray in dad xiriir leh cadowga ay ka faa'iideysteen dalabaadka sharciga ah ee muwaadiniinta si ay u beegsadaan amniga iyo xasiloonida waddanka telefishinka dawladda ayaa baahiyay muuqaal muujinaya aaska xubno ka tirsan ciidamada ammaanka oo lagu dilay dibadbaxyada ka dhacay magaalooyinka Shiraz, Qom, Hamadin bayaan ay sii daayeen ciidamada ilaalada kacaanka islaamiga ah ee IRGC loo yaqaan ayaa lagu eedeeyay waxa ay ugu yeereen argagixiso in ay beegsadeen saldhigyo military iyo amni labadii habeen ee la soo dhaafay iyagoo dilay dad rayid ah iyo xubno amni isla markaasna gubay hanti booliiska Iiraan ayaa ku dhawaaqay in 270 askari ay ku dhaawacmeen tan iyo markii dibadbaxyadu ay bilowdeen 2 toddobaad ka hor geesta kale dhaqaaqayaal ayaa baraha bulshada ku baahiyay muuqaalo muujinaya isu soo baxaya ka dhacay galbeedka magaalada Teheraan iyo magaalooyinka Tabriz, Mashhad, Yazd, Kermanshah iyo Karaj halkaasi oo dibadbaxayaasha ku dhawaaqayeen hal ku dhigya ka dhanaha dawladda iyadoo ay jireen ciidamo amni oo aad u badan oo halkaasi ku sugnaa haddaba iyadoo bannaanbaxyada Iiraan weli ay sii socdaan ayaa dhanka Mareykanka waxaa ka soo yeeray war weyn oo arrintan la xiriira maamulka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa ay yeesheen kulan looga hadlayay suurtagalnimada qorshe weerar lagu qaado Iiraan sida uu daabacay wargeyska The Wall Street Journal wargeyska oo soo xiganaya ilaa aan la magacaabin ayaa sheegay in wadahadalladan ay diiradda saareen qiimeyn ku saabsan bartilmaameedyada suurtagalka ah ee la beegsan karo haddii Mareykanku uu go'aansado inuu qaado tilaabo military mid ka mid ah xulashooyinka la falanqeeyay ayaa waxaa ka mid ah in duqayn xagga cirka oo baaxad weyn la qaado taasi oo lagu beegsanayo goobo military oo ku yaala gudaha Iiraan
warbixinta ayaa sheegtay in doodahani ay yimaadeen kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump marar badan uu ku hanjabay in Mareykanku uu weerari doono Iran haddii xukuumadda Tehran ay disho dibadbaxayaasha. Si kastaba ha ahaatee, jariiradda The Wall Street Journal ayaa xustay in aysan jirin wax calaamad ah oo muujinaya in weerar degdeg ah uu soo dhow yahay, waxaana kale oo la xaqiijiyay in ilaa hadda aan la dhaqaajin wax qalab militari ah ama ciidamo Mareykan ah oo lala xiriirinayo qorshe caynkaasiya. warbixinta ayaa wax intaasi ku dartay in wadahadalladu weli ay ku jiraan heer horodhaca, isla markaasna aysan jirin go'aan rasmi ah oo maamulka Trump uu ka gaaray in weerar la fuliyo iyo in kale. arrintan ayaa imaanaysa xilli uu sii kordhayso xiisadda u dhaxaysa Washington iyo Tehran, taasi oo walaac weyn ku abuurtay gobolka iyo caalamka. waa hagaag wixii war ah ee arrimahan ku soo kordha barnaamijyadeena dambe ayaan idinkugu soo gudbinaynaa haddii alla idmo. iminkana Islaamabad, qorshe la aaminsan yahay in Sacuudiga uu ku lug leeyahay ayaa Bakistan waxay kaga iibin doontaa Suudaan diyuuradaha dagaalka iyo agab kale oo military. haddii arrintan ay suurto gasho, waxaa la sheegayaa dagaalka Suudaan inay dhinac u ridi karto, maxaa yeelay diyaaradahan waxaa ku jirta diyaaradda J-17 ee ay wada sameeyaan Shiinaha iyo Bakistan. warbixin amurahan ku aadan waxaa soo jeedinaya wariyahayaga Yaxya Ciise. wakaaladda wararka Reuters oo soo xiganaysa ilo xogogaal ah ayaa sheegaysa in Bakistan ay ku dhowdahay inay dhameystirto heshiis ku kacaya 1.5 bilyan oo dollar, taas oo hub noocyadiisa kala duwan ee uga iibinaysa Suudaan. hubkaas oo isugu jira diyaaradaha dagaalka, diyaaradaha droonka ah iyo nidaamyada hawada, inkasta oo bayaanka si rasmi ah aan weli loo shaacin. sarkaal hore oo sare oo ka tirsan ciidamada cirka Bakistan iyo 3 ilo wareed oo arintan la socday ayaa wakaaladda u sheegay in heshiiska u dhaxeeya Islaamabad iyo Khartoum uu marayo marxaladii ugu dambeysay, isla markaana uu yahay taageero dibadeed oo muhiim ah oo loo fidinayo ciidamada Suudaan xilli ay wajahayaan ciidanka gurmadka degdega ah ee RSF. talaabadan ayaa la filayaa inay sare u qaado awoodda ciidamada Suudaan ee dagaalka kula jira RSF, isla markaana ay u sahasho inay dib u helaan awooddoodii cirka ay lumiyeen intii uu socday dagaalka in ka badan 2 sano iyo bar. Reuters waxay sheegtay in militariga Bakistan iyo wasaaradda difaacu aysan weli ka jawaabin codsiyo faallooyin ah, iyadoo sidoo kale afhayeenka militariga Suudaan uusan dhankiisa ka jawaabin. muxuu heshiiskan ka kooban yahay? laba ka mid ah ila wareedyada ayaa sheegay in heshiiskan uu ka kooban yahay 10 diyaaradood oo nooca Karakram 8 ah iyo in ka badan 200 oo drone sahmin iyo weerarada ah iyo nidaamka casriga ah ee difaaca hawada. Amir Mas'ud oo ah sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada cirka Bakistan ayaa sheegay in heshiiska uu ku jiro xaalad wanaagsan. heshiiska ayaa sidoo kale laga yaabaa inuu ku jiro diyaarado dagaal oo ay ka mid yihiin JF-17 kuwaas oo Bakistan iyo Shiinuhu ay si wada jira u farsameeyaan, inkasta oo aan la shaacin tirada ama jadwalka keenista. taageerada ay Bakistan siinayso ciidamada Suudaan, gaar ahaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droonka iyo diyaaradaha dagaalka, ayaa gacan ka geysan kara dib u soo celinta awoodda cirka ee ciidamada xilli RSF ay balaarisay isticmaalka diyaaradaha droonka ah si ay u xakameyso duulaano badan. tan iyo bishii Abriil 2023 Suudaan waxaa ka socday dagaal dhiig badan oo ku daatay oo u dhaxeeya ciidanka militariga dalkaas iyo ciidanka gurmadka degdega ee loo yaqaano RSF. dagaaladaas waxaa ku dhintay 10 qof oo reer Suudaan ah, halka ay ku barakaceen malaayiin, iyadoo ona hadda ay sii kordhayso digniinaha ku saabsan xaaladda bini'aadanimo oo ka sii daraysa. Yaxya Ciise, HBN Online TV. waa hagaag Yaxya, aad buu mahadsan yahay. halay intii la socotay barnaamijka qubanaha waxaan idin soo gudbinay war degdeg ah oo ku saabsanaa Mareykanka oo duqeymo ka fuliyay gudaha waddanka Syria. haddaba faahfaahin dheeraad ayaa ka soo baxday weerarkaasi. militariga Mareykanka ayaa sheegaya ilaa 3 goobood in ay weerareen. magaalada Tadmur ee bartamaha waddanka Syria ayaa la sheegay duqeynta inay ku wajahneed. fariin uu soo saaray taliska Centcom ee Mareykanka ee bariga dhexe ayaa lagu sheegay in la beegsaday xarumo Daacish ay leedahay, isla markaasna weerarkan uu daba joogo ficilo horey u dhacay. waa hagaag waxaan u gudbaynaa goordhow. xalay Israa'iil kumanayaal kun oo qof ayaa hurdaladeen. fariin moobilka ugu soo dhacday ayaan arrintaasi sababtay. haddaba fariintan maxaa ku qornaa?
warbixin ilaa iyo xal ilaa iyo saaka warbaahinta Israa'iil ee ka hadlaysa ayaan idin soo gudbinaynaa iyo sidoo kale sarkaal Israa'iiliya oo meydkiisa laga helay bartamaha Israa'iil iyo warar kale laakiin aynu ku hakanno qadar xayeysiina soo dhawaada mar kale daawadayaal wali waxaad la socotaan barnaamijkii xulashada wararka oo subaxnimadan axadda toos idinkaga imaanaya istuudiyahayaga koowaad barnaamijyadeena waxaad ka heli kartaan bogagga bulshada ee internetka sida YouTube-ka, Facebook-ka, Twitter-ka iyo Telegram-ka warbixino qoraal ah warar faclooyin iyo macluumaad kale waxaad ka heli kartaan bogga internetka aynu ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com ku xiran HBN oo ka dhigo wehelkaaga wararka waayahay sheekadii way noo soo socotaa xalay Israa'iil hurdalaanta ku ridid dad aad u fara badan laakiin isla Israa'iil aynu ku sii soconay xalay magaalada Tel Aviv banaanbaxyo balaaran ayaa ka dhacay waxaana la sheegayaa in ay dalbanayeen dibadbaxayaashu in la dhiso guddi baaritaan rasmi ah ku sameeya fashilkii weerarkii 7 Oktoobar 2023 iyo in xukunka laga toro xukuumadda ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu sida ay tabisay warbaahinta Israa'iil dibadbaxa ayaa fiidnimadii xalay ka dhacay fagaaraha Habima ee Tel Aviv kaas oo lagaga soo horjeeday isku dayada xukuumadda ee lagu qarinayo xaqiiqooyinka lagaga baxsanayo mas'uuliyadda laguna wiiqayo nidaamka dimuqraadiyadda sida ay yiraahdeen dibadbaxayaasha intii uu socday dibadbaxu Ami Ayalon oo horey u ahaa madaxa hay'adda sirdoonka Shin Bet kana soo noqday taliyaha ciidamada badda ayaa waxa uu yiri waa in xukuumaddan fallaagada ah la rido waxaa intaasi uu ku daray in siyaasadda xukuumadda ay halis ku tahay aragtida sahyuuniyadda wiiqaysana qiyamkii aasaasiyaashii dowladda ku qoran bayaanka madax banaanida isla markaasna ay ku tumanayaan madax banaanida garsoorka Ayalon waxa uu sheegay in sanadka soo socda uu noqon doono sanad doorashooyin go'aamin doona mustaqbalka dowladnimada Israa'iil dhanka ammaanka booliiska ayaa xiray 2 qof intii uu socday isqabqabsi ka dhacay fagaaraha dibadbaxa waxaa sidoo kale ka qayb galay shakhsiyaad caan ah kuwaasi oo dhammaantood dalbanayay in xukuumadda la xisaabtamo isku dayadeeda ah in ay qariso xaqiiqooyinka ku saabsan waxa ay ku tilmaameen xasuuqii taariikhiga ahaa isla wararka Israa'iil ciidanka Israa'iil ayaa xaqiijiyay in sarkaal ka tirsan ciidankooda meydkiisa laga helay bartamaha Israa'iil Sabtidii sida uu daabacay wargeyska The Times of Israel booliiska Israa'iil ayaa waxa ay sheegayaan in baaritaan lagu ogaanayo duruufaha ku xeeran geerida sarkaalkaasi waxaana natiijooyinka la sheegay in loo gudbin doono xeer ilaaliyaha militariga marka baaritaanku uu soo dhamaado militariga Israa'iil ayaa xaqiijiyay in qoyska marxuumka la wargeliyay arrinta kale ee mudan in la xuso ayay leedahay warbaahinta waxay tahay in bilihii la soo dhaafay aad ay u soo kordhayeen askarta iyagu isdilaya kiiskanna waxaa loo badinayaa sidaasi waa tahay sheekada ugu dambaysa marka aynu u gudubno xalay kumanayaal kun oo Israa'iiliina ayaan hurdo ladin maxay tahay sababtu waa fariin ugu soo dhacday mobilkooda haddaba sheekadaas aynu eegno fiidnimadii xalay Israa'iiliin badan ayaa helay fariimo qoraal ah oo xambaarsan hanjabaad kuwaasi oo warbaahinta ay ku tilmaamtay oo lala cabsi gelin ah oo loo aanaynayo dhinacyo Iiraan ah qoraalka fariinta ku qoran oo af Ingiriisi ayaa wuxuu ahaa waan imaanaynaa cirka eeg saqda dhexe yani qof kasta telefonkiisa ayaa u soo dhacday fariintaasi fariimahan ayaa abuuray walaac iyo su'aalo badan oo soo food saaray dadkii helay kuwaasi oo tiradooda lagu qiyaasay 100,000 iyadoo aan la garanayn cidda ka dambaysa iyo waqtiga la soo diray xilli laga cabsi qabo in ay qayb ka yihiin dagaal xagga nafsiga wargeyska Israa'iil Hayom ayaa waxa uu sheegay in saacadihii la soo dhaafay tiro aad u badan oo Israa'iiliina ay heleen fariimo shaki leh oo telefoonadooda looga soo diray kuwaasi oo xambaarsanaa nuxur cabsi leh xogta gudbinta ayaa waxay muujinaysaa in lambarka fariimaha laga soo diray uu yahay lambar magaalada London ah taasi oo sii kordhisay hubinta la'aanta ku saabsan ilaha dhabta ee ka dambeeya fariimahan iyo cidda soo dirtay hay'adda ammaanka cyberka ama internetka Israa'iil ayaa sheegtay in fariimahan cabsi gelinta ay yihiin isku day lagu abuurayo argagax iyo walbahaar dadweynaha dhexdiisa bayaan ay soo saartay hay'addu ayay waxay ku cadaysay inaysan jirin wax jabsasho ah oo lagu sameeyay qalab ama akoonno shakhsiyaad laakiin waxay sheegtay arrinta inay tahay olole cabsi gelin ah oo aan la garanayn cidda ka dambaysa isla markaasna fariimuhu yihiin
kuwa si aan kala sooc lahayn loo diray macnaha tusbax afka laga furay oo kale hay'addu waxay ku boorisay dadweynaha inay iska edhitiraan fariimahan aysan ka jawaabin isla markaasna ay xanimaan lambarka laga soo diray oo aysan u gudbin dad kale sida markaasi si aan loo balaarin baa la yiri walaaca waxaana warbixintan sidoo kale wax ka qortay wargeyska iyo daco taxranood ma jiran cadaadisi ama hanjabaad dhab ah waxaana macluumaadkan la sheegay in lagu helay fariimaha waxaan si wadi doonaa shaqadeena caadiga ah ee hubinta ammaanka saybarka iyo ilaalinta dadweynaha ayay hay'addu warkaasi sheegtay way telefoonada marka xalay hurdalaan buu riday dadkii ku riday waxa lagu leeyahay cirka fiiri caawa saqda dhexe waa ku imaanaynaa dadkii cabsi baa gashay iyo walwal iyo walbahaar xaaladuna way adag tahay dagaal baa laga cabsi qabaa warbaahintu waxay ka hadlaysaa dagaal iyo arrimo caynkaasi oo kale marka sheekada waxay noqotay sheeko saameyn ku yeelatay gudaha Israa'iil xalay ilaa iyo saakana aad looga hadalhayo waa tahay inta ayaan ku soo gabagabeynayaa saaka barnaamijkii xulashada wararka waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan uga xirnayn hadda ku soo biir waa inoo barnaamijka xiga insha Allah inta ka horeysa nabadgeli